السلام عليكم شيخ وانكو سلامي سلام كدب waxaan ku weydiinaya diinta islaamku maxay ka qabtaa waxa loo yaqaan family planning. alxamdulillah family planning waxaan u aqaanaa laba nooc ilmaha la kala fogeeyo iyo ilmaha tare inta la markay gaadhaan la joojiyo haday tahay ilmaha kala durkinto waxa su'aashu u noqonaysaa maxaa sababaya hadduu ka yimid wax sabab oo la taaban karo dan iyo maslaxa ahna dhibaato ma laha hadduu ka yimid isku dayga dadku ay isku dayayaan in ilmaha la kala fogeeyo ama haweento aynan uur qaadin haddii ay ka timid caqiida faasid ahna de waxa faasidka uu ku salaysan yahay de wixii faasid ah wax faasid oo xun buu dhalaa aan si inta ka badan faahfaahiyo xilliga nabiga calayhi salaatu wassalaam saxaabadu marar waxaa jirta ay isku day jireen masalada masalatul azl ninku haweentii inuu tago xilligii shahwada biyuhu ay imanayaanna u banaanka biyaha ula cararo iyagoo ka baqaya inay uur qaado biyihii ilmaha ku dhacaan arinta xilliga nabiga dhacay calayhi salaatu wassalaam xadiis badanna waa ku sugan tahay nabigu mar wuxuu yiri ma min kulli almaa yakunu alwalad biyaha oo dhan ilmaha lagama abuuray in yaroo kamidun baa laga abuuraa inta inay ka fakataa laga yaabaado inta badan banaanka la carar laakiin dhibiq ka fakatay baa laga yaabaa ilmihiin u dhasho mar kale wuxuu yiri waxa doontaan sameeya nafti ilaahay ugu talagalay inuu abuurmo way abuurmaysaa saxaabada qaar kamid oo filay Jaabir iyo Abu Saciid inay haayeen fi sahih Muslim غيركي waxay yiraahdeen kunna na'zilu wal qur'aanu yanzil walaw kana mimma yunha anhu lanahana anhu al qur'an biya banaankan ku daadin jirnay quraanka oo soo degay haday xaaraanta quraanka naga reebi lahaa taas oo dhan waxay ahayd isku day rag iyo haweenkii xiriirna ay sameynayaan inay uur qaadaan aynan rabin ama rasmi ha noqoto riwaayadka qaarkood waxay ku cileynayaan xilliga qaswi iyo jihaad iyo duulaan baa lagu jiray xilliga sabaaya iyo adooma ay ahaayeen inay uur u qaadaan maynan rabin duulaankii iyo qaswi dad ku jirana haweentii walaac haday uur qaaday walacday wax dhib badan weeye haday hadaba sababuhu yihiin meel cidla la joogay ilmihiin ay kala koraan baan u baahanahay qaraabo iyo daris iyo wax ilma lagu aamino male ilmihii baa isa saar noqday hooyadii baa yar tabar beeshay uu ku soo degdegay marka ma wada xamili karto hooyadii caafimaadkeeda asbaaba saas oo kaleeto oo mantiqo sharciga oo galiyo xaajaad iyo daruuraada haday ku salaysan tahay dhibaato ma leh xilliga nabiga dhici jirtay sallallahu alayhi wasallam haday aqoonta faasida ku salaysan tahay risiq xageed uga keeni intaas oo ilmood maadaa beeli kara haday mas'aladu tahayna watii quraanku reebay bay soo galaysaa iyo sunnaduba quraankuna wuxuu ku tilmaamay walaa taqtulu awlaadakum khashyata imlaaqin faqrika cabsiga iyo beel xageed ka keentaa gaaladii baa laga reebay risiqana ilaahay baa hayo waana aqeeda xumo qof walba risiq ilaahay qoray buu wataa ilmaha isagoo dhalan barab risiqiisu qora hal dayac macnaheedu maaha laakiin risiq ilaahay haye ilma in loo dagaalamo sax ma maadaama nabigu amray tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukathirun bikum yawm alqiyamah min labaadna nabiga alayhi salatu wassalaam ilmaha laga ilaalinaya ama yarida lagu soo tuurayana ذاك الوأد الخفي ilmihi nolosha carabtu ku xayaabi jirtay isagoo nool oo muuqda aasi jirtay tiyo qarsoon oo dadban way waa nooc ka reebitaan iyo dhiirigelin arinta inaan la sameeynin ah sadarteed haday family planning ku salaysan tahay aqeeda faasidana waxa u baahan ficilkan waa khalad wax khaladana uu ku salaysan yahay aqeedada faasidana waa dambi wixii ka dhashana waa dambi haday tan xaajaadka iyo baahida ay ku salaysan tahayna dhibaato ma laha billahi tawfiiq